wuxuu ka warramay xigmadiisa aadka u qiimaha badan iyo cilmigiisa xeesha dheer ee la xidhiidha abuurka asalkeennii aadam abulbashar iyo halkuu ilaahay ka abuuray inuu isagoodaa waxa ka soo bixi doonay arrin dheeraad ahoo aynaan ogeyn baa aqoontiisa laynoo soo gudbinaya kaasaa lagu kala baxay habays bay weydaaran walaqad makkannaakum fi lardi dhulka ayaanu idin dejinnay dibudejin baanu dhulka dad yahaw idinku samayn oo wixii aad ku degi lahaydena idin anfici lahaa baanu halkaa idinku samaynay wajacalnaa lakum waxaanu idin yeelnay fiihaa dhulka dhexdiisa macaayisha habnoleedkiinni iyo waxaa ku noolaan lahaydeen wixii dad ku noolaan lahaa bal u fiirsoo ummad waliba halka ay ku nooshahay habkay ugu noolaan lahayd baa ilaahay u sakhiray kuwa aad aragtee xaraaradda iyo kulaylka ku nool macaayishtoodii iyo habkay u noolaan lahaayeen baa ilaahay u diyaariyey iyo inay dhaaqa iyo tamar u yeeshaan kuwaad aragtay qabowga iyo barafka cagafta ku riixaya habkay ugu noolaan lahaayeen iyo se wax ugu soo bixi lahaayeen qaliilan maa tashkuruun inaad u yar baa mahadnaqaysaan walaqad khalaqnaakum waanu idin abuurnay waa aadam ayaa ilaahay u abuuray dee abuurka aabaheen u abuuray innaga ayaa ku laynoo nisbayn karaa marka innaga laynoo nisbeeyo le waanu idin abuurnay khalaqnaa abaakum uma sawarnaakum dabeetana waanu idin qorshaynay oo habkii muuqaalkii ugu wanaagsanaa baanu idiin abuurnay aadam baa ilaahay sawirkiisii uu bixiyey tilmaantii waa habdhifkiisu ahaa uma intaa kadib qulnaa lilmalaa'ikati waxaanu ku nidhi usjuduu liaadama aadam u sujuuda sujuuddaasina waa ilaahay baa le sujuudda waa ku maamuusa waxaana uu doonayaa khalqigiisan ka agdhow aadam inay kala baxaan oo cid nacabah iyo cid gacala uu aadan kala ogaado ayaa la doonayaa fasajaduu ilaa ibliisa way wada sujuudeen kaa mooyaane lam yakun min asaajidiina kuwii fooda dhigay isagu kama mid ahayn qaala waxa ilaahay uhi maa manacaka maxaa kuu diidee kaa hor joogsaday anlaa tasjuda ay an tasjuda inaad aadam u sujuuddo id amartuka kolkaan ku faray ilaan amarka ilaahay dhacyaaba wuxuu mudan yahay in la fuliyo fatashaad kale iyo faallo kale iyo xikmad la raadiye iyo maya id amartuka baa ilaahay u leeyay macnaa caqligu markaa majaalugama banaana in uu muran ka keeno ee amar ilaahay kol hadduu yimaado waa la fulinaya qaala wuxuu ihi ana khayrun minhu dee anaaba ka khayr badan oo khalaqtanii min naarin dab baad iga abuurtay wa khalaqtahu min tiinin isagana dhoobaad ka abuurtay halkaa waxaa iiga baxday markii aan isqanciyey weeye macnaha een qiyaas sameeyey waxa waa kii qiyaas faasida sameeyey ugu horreeyey sida uu leeyahay axadul taabiciin marka wuxuu leeyahay dee uma habboona ka fadliga badani midkii uu ka fadliga badnaa inuu u sujuudo taasuu yidhi marka wuxuu baalmarayaa id amartuka amarka ilaahayba muu eegine waxbuu qiyaasa qaala ilaahay baa waxa ihi u cuqubeeye fahbid minhaa ka degbal jannada ama samada famaa yakuunu laka kuuma habboona an tatakabbara fiiha inaad isku weynayso inaad ku kibirta halkan kuuma habboona inaad mahadnaqdaa un baahay fakhruj ayaa la yidhi bax oo weydaaro innaka min asaakhiriin waxaad ka mid tahay kuwa la dulleeyey marka abaalka noocana buu leeyahay insaanka aan u hoggaansamin ama ummadda aan u hoggaansamin ilaahay amarkiisa laakiin yidhaahda hadduu ilaahay yidhi oo uu rasuulku yidhi dee annaguna waanu nidhi udhayada ayaan nidhi oo sidaa nidhi oo sidaa nidhi inay dadku yidhaahdaan raadka ibliis wey qaala markaa isaguna waxau idhi andirnii ii kaadi ilaa yawmi yubcathuun ilaa maalinka lasoo noolayn doono khalqiga bal cagta ii dhig buuri u arkayaa inuu ilaahay awoodda leeyahy laakiin aafa ku dhacday u weydaartay qaala ilaahay baa yidhi innaka adigu min almundariina kuwa loo kaadinayaad ka midta ilaa suurta inta la afuufayo midhkaa markuu isku habsaday waxa keliya u soo faydfaydanayaa waxa weeye in lala godgalo oo halka uu gelayo lala galo idan markaa waa xaasid ayuu ahaa ninkani xasadkii ugu weynaa iyo kibirkii ugu weynaa intaba isaga ayaa sameeyey ibliiskaa isaga ah xasadkii kiisa dee ugu xunna waa ka mid haddii adigu aada halaagsantay inaad jeclaato dadku inuu wada halaagsamo oo aad tidhaahdo dhan walba ha lagu qabo
مشكلة إبليس كلا قال حليك مت قال مركا وحول فبما أغويتني أم بنت آله وأم بسي سببت إذا لا أقعدن اللهم محن فريسان دونا صراطك المستقيم جدكا توصن وأبي هاي جد توصنين وجرو سداسو كبر يعني جد قوين بانقلبو أول دول جيف الله يقولك halkaasuu fadhiistay marka waa la inoo fadhiyaa jidka aynu ilaahay u marayno raali noqoshiisa u marayno jannadiisa u marayno waa la fadhiyaa keligiina maaha waa la weheliyaa oo colaal buu wataa thumma la'aatiyannahum waxaan kaga iman doonaa min bayni aydiihim xaggooda hore wa min khalfihim xaggooda dambe wa can aymaanihim midigyaashooda wa can shamaa'ilihim bidixyaashooda dhan walba afarta jiho walaa tajidu heli maysid aktarahum intooda badan shaakiriina iyagaa kugu mahadnaqayaba ma arki doontid buu ee intooda badani gacan sayr bay keeniyo ilaahay way kugu gacan sayri doonaan buu marka dee afarta jiho unbay tilmaamaysaa colku marka uu dhinac kuu xaalad milatari kolka eego colku kolkuu dhan kuu banneeyo iyo markuu afarta jihaba kaa maro oo buu geliyay baa layidha colki dabeetana halkaasi waa loo yaabaa wuxunay tilmaamaysaa marka inaanu meella kuu reebayn aimada qaarkood waxay isku dayeen inay yar kala jiheeyaan afartan oo xagga hore iyo xagga dambe waa adduun iyo aakhiro aakhiraha ka horaysa iyo aakhiraha ka dambaysa labadaba waa laydhaa adduunyadana waanu qurxin aakhirana waanu bushaarayn inaanu waxba waayin midigta iyo bidixda midigtaan kaga imanoo wax alla wixii dhinaca midig ka xigee khayr ahoo dhan uu silaado u dhaqaaq waan ka taakayn doonaa dhagax baan uga dhigi bidixdan ka mariyo waan u soo jiidi doonaa siduu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam naartana waxa lagu dayray wixii ay jeceshahay naftu jannadana waxa lagu dayray wixii ay neceb tahay naftu qaala markaa ilaahay baa waxa uu khruj minha bal ka baxalka waa halka uu joogo meeshan laga eriyeen u qalmine waa meel maamuus lahu ama ha la yidhaahdo jannadii ama ha la yidhaahdo samadii ama ha la yidhaahdo minhaa malaa'igtu majmuuceeda ka mid ahaa ee uu ku jirayba ha la yidhaahdo dee samaduna waa xagga koran wa fi samaa'i risqukum wamaa tuucaduun arsaaqaduna xagga kore ka imanaysaa iyo shayga laydin yaabo waa jannada isna waa xagga sare ka bax baa lay halkan mad'uuman madxuuran adiga oo la ceebeeyey oo cay leh ceebaysan madxuuran la fogeeyey laman tabicaka baa ilaahay wuli allana dhaabadan u dhigay cidda ku raacdaa minhum ka mida kuwa aadam dhaleed sheegaysa la-amla-ana jahannama baan ka buuxin doonaa minkum ajmaciin dhammaantii intaa ku raacday weeye ajmaciina intaa halkaasaa laga buuxin doonaa waa ka nebi aadam calayhi salaam wuu dhegataagaya wuu yaabaya marka la yidhaha akhrij bacta annaar bal intii naarta gelaysay soo saar ilaahayo waa intee dabeetana waxaa leeyahy dee kunkii miduun daa 999 waxaanaad la yaabsan tahay qaar indhaha ay leeyihiin asraqa ah ama indhoodu cirka u eegin qaarna indhaha yaryar yihiin ee aad la yaabaysay dhan walba ka maray dadka muslimiinta ah sagaasaa laga buuxinaya dab laga siinaya kolkaa qofkaasina wuxuu u soo hadhayaa un jannada ayuu soo hadhayaa kolkii dabeetana isaga arrinkiisii halkaa maray ilaahayna halaagaasuu dusha uga tuuray isagiiya wixii raaca aadan baa loo digay ويا آدم با إله آدم أسكن أنت وزوجك أدق إيو حاسكاغو أوردادو وحا عيسكدكتان الجنة دقا فكلا من حيث شئتما وحا وحكا عنتان ماشي أدونيسان حيث شئتما أي ماذا قاركوت بآخرية همزة بدلعي ماشي أدونيسان وحكا عنا وفسح كودوي ولا تقربا هذه الشجرة كيدا نسكيل عليها وقيد لوت المعلم فتكونا من الظالمين لقما قرنين وحلا واحد كمد نقون قوة ظلمي السمايي أحد قد بيني كمد نقون طونتان حتى جيت كعنتان فكوا مسألة إنه حلا صوت الماء بينه وإذن وضع مباح لكن مركاسون اسكداي فوسوس لهما الشيطان مركا ده قصة ما شو يكبح ذا قصة إسرائيلي يوم بيسكن نقطة إسلامتي بقى أنا سوق بطل بيتنا ما إبليس بعد ده كتو سيبيو من نوعية أو تسيئو markaasaa dabeetana aadam ay soo qabato geedkii lagu tijaabiyay qisada caynkaas ah iska sheek xariiruniyad khuraafaad loo duruxulayo un malaha dumarka iyo in dambi aanay lahayn loo soo duwo fawaswasa lahuma shaytaanu buu lahayd shaytaan baa labadoodii labaadiyeeyay dacsi lambu ku soo kiciyay lahuma way wada jiraan ogow
liyubdiya lahumaa si uu iyaga ugu muujiyo maa wuriya canhumaa wixii laga qariyey oo min saw-aatihimaa xumaystoodiia oo markaynu erayga sidiisa u macnayne xumays waar xumaysta qari baa laydhaha qofka soo fayda ee agabkiisa inaga asturi waaya xumaysta qari baa laydhaha xumaystii ay lahaayeen ee laga qariyey wuxuu ilaahay kaga qariyeyba aimada qaarkood baa tilmaamaa waxay gashanaayeen waxa uu ahaa dhar uu kasii joogo cidiyahani waana lahum daliil daliilkaasi xaguu jiraa jiruu cidiyahani kasii joogo asturnaan uu kasii joogaa waxay doontahaa ilaahay baa qariyey kii laga qariyey buu doonayaa isagu inuu u faydfaydo markaasuu dabeetana tan maray wa qaala waxa uhi maa nahaakumaa rabbukumaa can hadihi shajara ilaahaynu geedkan idinkumuu diidin ilaa an takuunaa inaad noqonaysaan mooyaane malakayni laba malag malikaynidu ma huba inay sabcada ka mid tihiin kale malikayni haddii la idhaha kaafka la hoos dhabo oo dee qiro sugan oo shaadaha inay noqoto waa boqor laba boqor ba idin noqon weeye ama laba malag dee malagna waa iska macruuf fidrada iyo abuurka wanaagsani mar walba wanaagunbuu u qoraa wanaagunbuu u qiraya cunna shaytaan baa ayaa loo nisbaynaya wixii fool laba malag ba idin noqon aw takuunaa min alkhaalidiin ama waxay idinka mid noqon doontaan kuwa waara waa idin waari ama malagna waa idin noqon ama laba boqor ba idin noqon intaa kumuu daynine cala alla ku dhacday waqaasamahumaa markaasuu xagaf uga siiyey oo u dhaartay innii lakumaa buu leeyahy anigu labadiinan cid kale maan sheegina la min annaasixiina waxaan ka mid ahay kuwa la talinaya qof hadduu wax kuu sheegu kuu dhaartuu kuudhaa xalla waxaan kaa doonayaa ma jiro waa talow ama qaada ama diid dee runtii waad arkaysaa saameyntay kugu leedahay meeshana dee dembi horoo ka dhacay iyo dad wax isweydaariye lama aqoone kii ugu horreeya aafaysnaa wey aabbihii weynaa mufsidiinta wey dabeecadda insaankana waxaa iskaga jira inuu wax badanna helo aanu weydaaranina kuna waaro sidaa darteed baa markuu ilaahay ahlu jannaha u bushaaraynayo dadka jannada ugu bushaaraynayo waxa uu tilmaamaa khaalidiina fiiha waxaasi helaya suuratu raxmaan akhirkeeda akhri oo fara badan bay helaya waxaa loo raacinaya un xagga dambe khaalidiina fiiha halka dadkani ay ku dadaalayaan inay wax badan urursadaan maal iyo madaxnimada dabeetana wixii ka dhaawacayana ay iska eegaan ee dadkii kusoo jahaysanna ay sidii fircoon gooyaan ay laayaan ay gowracaan kolkaas intaasuu maray dabeecadda insaanka ayuu dareenkeedii buu yaqaanaa